صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا xumaantoo loo diido qiimaha ay leedahay saddex qodob ayaynu midba wax ka odhan doonaa qodobka u horeeya waxa weeye xukunkiisa islaamku muxuu ka qabaa ma waajib baa mise waa sunne iyo qodobka labaad oo xigmadda ku jirta iyo qodobka saddexaad oo ah mansilada iyo miisaanku islaamka ku leeyahay arrintaas camalka cibaadada ah midda u horeysa weeye xagga xukunkiisa waa faral in dadka wanaaggana la faro xumaantana loo diido sunno maaha waa faral dadkao dhan bay faral ku tahay waxa la wixii caqlila wax kala garanaya qaangaadha faral bay ku tahay rag iyo dumarba faralka haddii qayb ka mid ah fulisana uu ka dhacaya haddii kale dhammaantood way wada dambaabayaan daliilo badan baa muujinaya qur-aanka waxaa ka mid ah aayadda rabbi subxaanahu watacaala ummadda uu amrayba waltakun minkum umma amar buu bixiyey waltakun minkum umma ummad ha la idinka helay yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar dad ha la idinka helo wanaagga dadka ugu yeedha xumaanta diida wanaagga fara ha la idinka helo amar walamru yaqtadi lwujuub waxaa kaloo ilaahay uu inagu faray suuratu almaa-ida watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wanaaggiyo samafalka isu kaashada waa wanaagga isfara xumaan iyo dembi iyo xadgudub ha isu kaashanina waa munkarka iska daaya isu diida wey aayadda afraad waxay ku jirtaa un suuratu lmaa-ida iyana dadka doorkooda qaadan waaya maxaa ku dhacaya lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wakanuu yactaduun maxaa ku xiga kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labisa maa kanuu yafcaluun nimankaasi waxaa nacdashaasi ugu dhacday nebiyadii u nacdaleen ilaahay usoo diray xumaantaana isu diidi jirin baa ilaahay subxaanahu watacaala aayadda afraad suuratu taxriim yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran amar wey ehelkiina iyo naftiin iyo ehelkiina ka nabadgeliya naar waa munkarka ka badbaadiya markaad aragtay waajibnimadiisa dee iyo axaadiidii rasuulka aada u badan calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu leeyahy xadiidkii xasankaa wallaahi in waladii nafsii biyadi lata'muruna bilmacruuf walatanhawuna cani lmunkar aw layabcahana allahu calaykum cadaaba min cindihi uma tadcuunahu falaa yastajiibu lakum calaa macna alxadiid intuu nebigu dhaartay baa wuxuu leeyahy wallahi ina idin xumaanta isu diidi wanaaggana isfari wadaagana wayd isfari doontaan haddaad sidaa yeeli weydaan ilaahay ciqaab buu idinku soo diri doonaa ciqaabkaasi nooc walba u noqon karaa noocyo kala duwan balaayooyinka markaasa idin yaa allah badin doontaan baryada waxba la idinka aqbali maayo mansiladiisa iyo darajadiisa islaamka dhexdiisa uu ku leeyahay tusaaluu nebigu taa ka bixiyey inaan laga maarmayninba xadiidkii caanka ah ee wada garanaysaan xadiidu safiina xadiidkii ka warramayay doonida nebigu muxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam tani dooni kaliya inay wada saaranta adduunyadaa dooni wada saarano magaaladaa dooni wada saarano inta guriga joogtaa dooni wada saarano doonidaasaa lagu wada jiraa hadday ka indhalaabtaan dadku qaar dubayaa la dhacaya iyo qaar daloolinaya iyo qaar diiqdiiqaya haddii laga indhalaabto biyuunbaa kuu soo geli arka kacaay markaasaa sidii noocii badda ku hafan jiray ayaa la hafan doonaa ama waxaa kuu soo geli doonaa dab ololaya waad barakici haddaad u dhegoolayso munkarki iyo macaasida waxaad arki doontaa reerka caruurtaadii oo kharibantay dadkii aad dhisaysay eed maal gelinaysay oo baaba-ay unbaad ama iskuulkaa lagu kharaabiyey ama shaarica lagu kharaabiyey ama saaxiib baa kharaabiyey war waxa waabaan dadaalaya xagga laga helay hareerahaanad iska eegin oo doonidii ayaa dubayaashii iyo daloolkii ka ilaalin wey
iyo dadkii kusoo duulay mansiladu leeyahay markaa waxa weeye badbaadadii ummadda ku jirta marka laaga xigmadaha ku jira iyo faa'iidooyinka kow waxa ka ade waa wadiifadii rusushu maxay u taagnaayeen dee inay dadka wanaagga faraan xumaantana u diidaan bal ambiyadan dhegayso qisooyinkan aynu dhegaysanayno intaasoo nebi mid waliba munkar buu diidayaa wuxuu u taagan yahay noloshiisa ku qaatay wanaagna dadku faraya xigmadaha waxaa ka mid a balaayada soo socotuu ilaahay inaga dulqaadaa haddayna dad damiirle oo xumaanta ka siqsiqaya oo dhiidhiyaya oo waxani uu damqayo ilaahay uu ina arkayaa dareenkeenne dhibkayna haystuu inaga dulqaadaya in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim balaada haysata dadkan ilaahay ka dulqaadi maayo ilaa ay xumaanta iska dulqaadaan dhibaatada inagu soo socotana ilaahay wuu inaga joojinayaa aayaadka dhegayso falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can الsuu waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun waanu badbaadinay baa ilahay dadkii xumaanta diiday badbaada waa laba qoloo isku meel jooga qola xumaantii bay diidda way nabad galeen qoladii kalena waa la halaago cawdaa loo jaray balaayada soo socota ilaahay wuxuu ku joojiyaa in la helo cid isu taagta taa dadka waa la kala saaraya haddii kale waa la isku raraya waa la israacinaya waxaa ka mid a xigmadaha iyo faa'iidooyinka ku jira alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waa iqaamat lxujati cala annaas dadkii xujadii baa lagu ogaya dad waxaa jiro iskaba jaahiliin oo waxaan ogeyn oon qaar u dhagoolayn ee isku dhex jirtaa rusula mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul mar haddii rusushu ay digeen oo awliyada ilaahay ay digeen oo ducaaddu ay digeen dadkani waxay ku marmarsoodaan ma heli doonaan aqbalkii ducadoodaa ku jirta saa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam allahdan aynu badinayno ducadan aynu badinayno waxyaabo badan oo caa'iq ku ahoo hor jooga ayaa badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa xuse ay ka mid yihiin markaynu usoo noqonno maanta dhib badan baa ayaa yaalla munkarku aada buu u faafay meelo badan buu ka socdaa ilbaxnimaa lagu tilmaamaa dad maalgeliyo oo dabada ka wadaa jiro oo dee gaala kow ka yihiin meelo waaweyn iyo meelo soka iyo meelo dhexayntaba uu ka socdaa marka macnaheedu waxa weeye si aynu horeba u xusnay dee laba midun bay noqonaysa si ay dadku u badbaadaan oo diin iyo dal iyo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan caqiide ahaan cibaado ahaan usra qoys ahaan dhinac walba si loo badbaado in arrintaa la isu taago oo la iska kaashado xumaanta waxaa la idhaha weliba dadku way kala duwan yihiin dee dadka debadaha ku nool ee dalkeenna ka maqan ee meel gaala joogto itaalkooda waa iska yarya laakiin dadkeennan dalkoodii jooga ee haddana marka qofkii caasiga ahaa la arka madaxa la foororinayo mid madaxa iyo mid minja-a iyo mid wadaada iyo mid moranla-a madaxuun baa la foorinaya dadku shahaamadii iyo raganimadii iyo qiiradii male fatiiladii laambadii bayna baktidaad moodaa halkanaa qofku arkaya macaasi la samaynaya markaad u sheegto wuxuu le inaga daa afaarahooda geli mayne jalfis baa inagu qarxaysa inagu taataaban saasuu kuleeyahy kii kale saasuu kuleeyahy berigii hore dadka waxaan oo kale may dhici jirin qofka xumaan samaynaya la arko mar quraa lagu kici jiray shaydaankii iyo ehelkiisuna waa khanaas alwaswaas alkhanaas oo qur-aanku ma sifayn shayaadiinta waxaan wadaa waa khanaas wuu isqariyaa sida bakteriyadan had iyo jeer haddii dawada antigeeda ah dilaysa lagu taabto marka dii culture la samaynayo lagu taabto way qarsoomaysaa way libdhaysa haddii kale taa weydana madaxay la soo kacaysa way iswaraysanaya intaa waxay leeyihin horta dadkii wax diidi jiray iyo waxaan imika dee suuqiis waacinkee marka la iswaraystee la yidhaha wallahi cidina imika in hor joogsan mayso gaadhiga la dhaqaajinaya idan markaa waxaynu leenahay dadka mas-uuliyiinta ah odayaasha ducaadda salaadiinta dumarka cid walba xil baa saaran xilkaana nebigu uu sheegay oo xadiidkii uu ina amrayay isaguna ku jiray axaadiidta waajib ka dhigaysa baabkan rag iyo dumarba nebigu uu caam yeelay man ra'aa minkum munkaran maxaa la yidhi falyugayirhu biyadihi man tufiidu alcumuum mawsuulaadka mushtarag ah ee cumuumka faa'iideeye wey qof walba mid madaxa iyo mid racyada rag iyo dumarba darajooyinku baa loo eegaya qof waliya awooddii qofku intuu kari karaya un baa la eegaya laakiin muu kala reebin nebigu jaarkaagaad sixi kartaa ehelkaad sixi kartaa asxaabtaad sixi kartaa maamulkaad sixi kartaa
nin waliba nin buu kelmad ku leeyahay kelmadaada haddaad qaadan weydo ama ficilkaaga qaadan weydo maalinta qiyaamaha way ku hortaalaa arrinkaa waad furin karaysay waad sixi karaysay buu ilaahay ku leeyahay maxaad u hakratay maxaad naftaada u hakratay arrimahan waxay naga caawinaya inaynu ku kalsoonnahay nafteenna iyo mabda'eenna laabudda an nahiqa bimabda'ina alxaq wa bianfusina qofku naftiisa markuu ku kalsoon yahay ee inuu wuxuu hadlayaa diintiisii oo ilaahay uu raali gelinay oo dalkiisii joogo oo awood ku leeyahay markuu ku qanacsan yahay ee naftiisana uu ku kalsoon yahay markaa waxbuu dhaqaajin karayaa laakiin maadaamaad munkarkii ka gabanaysa iyo macruufkii inaad sheegto macnaheedu waxa weeye manhajkaagana kuma kalsoonid naftaadana kuma kalsoonid cadamu hiqa ayaa jirta kalsooni daro iyadoo calankiisuu taagan yaho sidaa laydhka uu soo shidanaya kii munkarkiiyo fasaadka waday ayaa haddana dadkii wax wanaagsan sheegi lahaa iska gaabinaya marka arrintaas waxaynu leenahay dadku qiiradii iyo xamaasadii iyo niyad wanaaggii ha soo celiyaan iyo xumaantii ay ka dhiidhiyayeen dee qof walibana sidaa uu nebigu sheegay maraatib baa jira qof ficil buu kari karaya waa dadka mas-uuliyiinta ah qofka mas-uulkaahi wuxuu ummadda u ilaalinaya kowi waa diintooda hadduu diinta ilaalin waayo dad iyo dalba way kharaabeen isaguna wuxuu maamulo heli maayo wuxuu ku wareeraa unbuu arki doonaa dadka haddaad hagaajiso diintoodii iyo iimaankooda dhistood munkarka kala dagaalantood macruufka ku rabayso way qanci doonaan oo iyagoo ilaahay adeecaya ku aqbali kaaga mas-uulka ahow laakiin haddaad tidhaahda xaggaa inaga daha inagu taataabanin inaga siyaasadunba ina khusaysay inaynu dadka fuushanaano iyo kursigooda way kula soo kici oo markaasaa meelaad martay la waayi markaasaa laga yaabaa inay runtii dee tallaabooyin qaladii meeshii ay yimaadaan almuhim dadka kelmadda leh iyaguna waa guud ahaan dadweynaha iyo qof waliba xumaantu arka war ka daa war hebel ha la qabto marka hore waa nasiixa qofkii in loo naseexeeyo hadduu naseexadii aqbali waayo noqdo qof canaada oo doonaya inuu wax kharibuu tallaabo qalada qaado markaa waa in iskaashi la sameeyo munkarkana marka la suulinayo kolley dee waxaa laga duulayaa ka door oo ha ka darin waad fahamtay soo maaha ka door macnaa waa inaad wax kordhiso oo lama doonayo xadgudub gaboodfalna lama doonayo haddii qola gaabisay ka gaabiyaan qolo kalena xamaasada ay qaaday ka daraanba oo iyaguna dhanka kale ay uga tallaabaan waxba muu soo kordhin marka waa inuu ka dooraa qofku uu ka reeyaa oo aanu ka darin saa daraaddeed baa layaa munkar laguma suuliyo munkar la mida ama ka weyn markaad wixii xumaanta ka saarayso waa inaad wax soo kordhinayso qofkii hanuunayo oo wax hagaagayaan hadday isku dhalaalayso oo qofkiina uu dee calanka sii taaganayo siiba kibrayo dhinac kalea looga wareegayaa marka baabkaasaynu aada u baraarujin lahayn waanaad arkaysaa 3 qolo ayay qisadan reer banu israa'iil ka warramaysa iska daayadaa la sabtida ha ugaarsanina kalluunka nimankuna niman munaafiqiin ama dhib badan midna waxay yidhaahdeen kol haddii bahalkaa la inoo diiday maalinta sabtida maalintii sabtida uun waa la imtixaanaya ayuu bahalkii halkan imanaya culimada waxay leeyihin waxaa laga faa'iidaysanaya qofka caasiga ah iyadoo ilaahay imtixaanayo kubaddaa loo soo sallaxaya markaasuu dhaqso u laadaya way isugu hagaagaysaa imika meel anag hadduu tuuku xadayo waxaad ka fikiraysaa sidee waxaan oo dhan isugu hagaageen halkan aad fadhiday wax kale maad ilaalinayn jawaalkaaga ama moobaylka ku ag yaaluu qaatay goorma waxaan loo sakhiray balaa ku dhacdayga waa la isugu hagaajiyey waa imtixaan isaga waa la imtixaanayo marka nimankan iyagaa kalluunkii wuxuu noqday in maalintaa shuracan mid soo baxaya mar waxaan wax la deyn kara maahee wuxuu doonaya ha ahaadee inoo qabta waa la ururiyo maalintii axadiina waa la qaatay qolo waxay yidhaahdeen qolo diiday iyo qolo ka aamusay iyo qolo sameeyey qur-aanku wuxuu sheegay in qoladii diiday la badbaadiyey qoladii kalena la halaagay kuwii aamusayna waa laga aamusay hadduu ilaahayba ku xusi waayo waa ayaan darro weyn marka wuu halaagay rabbi iyo wuu daayay labadaba way jiraane laakiin aamuska ilaahay uu ka aamus ayaaba iyaduna cajiiba جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن